waxaan la joognaa Cabdiraxmaan Cabdinuur oo ahaa ardaygii ugu horeeyay ee lagu diiwaan geliyay dugsiga sare ee wiilasha Wajihay ee ku yaala magaalada Wajeer 60 sano ka hor oo la aasaasay dugsigani waxa uu noqday ardaygii ugu horeeyay oo ka mid noqda ardaydii wax ka baratay halkani admissionka ama diiwaan gelinta nambarkiisana waxa uu ahaa eber hal ama admission number 001 haddaba 60 sano kadib maanta waxa dib isugu imaanayaan dugsiga Wajihay ee ku yaala magaalada Wajeer ardaydii hore ee wax ka baratay dugsigani oo isagu ahaa hormuudkii ugu horeeyay ugu horeen adeer macaan waa ku faraxsanahay la kulankaaga barasho wanaagsan magacaaga saddexaad iyo bal taariikhdii iskuulkan uu soo maray iyo dareenkaaga magacayga Cabdiraxmaan Cabdinuur Cali way markan waxaan halka iskuulka waxaan soo galay 1965 ardayga ugu horeeyay baan ahaa Wajeer oo iskuulka soo galay markii u horeysay iskuulka ma dhisnaan waxaan ku akhrisan jirnay primary schoolka oo yaan form 1 form 2 aan ku akhrisanay meeshana waa la dhisay waa colony ka bacad ka hore marka meeshana aan imaanay iskuulkii saas aan ku dhamaysan marka hadda yani marka ninkii ugu horeeyay hadaan ahaa dad arday badan baa soo maray meesha oo wax soo barteen marka aniga taariikhdayda ahaana waxa marka inta dhameeyay waxaan aaday meel la yiraahdo Animal Health Industry Institute Training Institute Haiti meesha la yiraahdo meesha 2 sano aan ku akhristay shaqo baar hore ka bilaaway shaqadii markaan bilaaway waxaan shaqo badan baa qabtay grazing block waxa la yiraahdo oo xagga maarata xoolaha iyo dhirta daaqa ayaan meeshan markaan aan ka shaqayn jiray Wajeer ilaa Mandera iyo dhulkaas kulliya soo maray markaan tan kale waxaan hadana ka shaqaynay oo la shaqayn jiray niman socialist oo maarata halka shacabka yani xagga ka shaqeeyaan la shaqayn jiray ka hore markaan saas ana horta meesha aan ku bilaabay marka waa sidee dareenkaaga maadaama adigoo dhalinyar ah oo 12 sano jir ah halkan wax ku baratay maantana adigoo awow ah aad halkan dhex taagantahay والله aad baan ugu faraxsanahay maxaa intii meesha soo martay kulli yani aad baan ugu faraxsanahay horumar weyn baa la gaaray iskuulkina waa yani horumar baa la gaaray dad badanna waa ka soo baxeen oo soo dhameeyeen marka aad baan ugu faraxsanahay maxaa maanta waxaan joognaa meesha dadkii awal meesha ku soo barteen kulli ay imaadeen oo wada fadhiyaan bas xaga la soo 60 sano kadib ragga maanta aad kulanteen ama aad aragteen wajiyadooda sidee dareentay markaad aragtay والله aad baan ugu faraxay maxaa dadka waa dadan u soo akhrisan jirnay marka aad bay yani iisoo dhaweeyeen igu raaqyaqeen marka aad aan ugu faraxsanahay waana igu maasan yahay maashadan imaad fariintaad u dirayso ardayda hadda dugsiga ku jiraan ardayda waxaan leeyahay horta si fiican wax loo barto maxaa wadankan annakaas kale oo meel ka soo joogno Soomaalida aad baa yani cilunta ugu yireen marka waxaan doonaynaa inay yani waqti si fiican wax bartaan injineeriyal ka soo baxaan dad yani maarata oo dawladda madax kale ka soo baxaan oo maarata yani dad awood leh inay noqdaan maxaa adduunku waxa leeyahay Soomaalida wax ma baranayaan dad wax baranayno ma aha leeyahay marka inay dad wax bartaan nahay maxaa intii wax barata aad bay wax u qabtaan oo maarata meel fiican bay ka soo oo ka mid yahay Mukhtaar oo si fiican asagana aan ogaatay soo jirnay oo hadda engineer iyo yaxad wax ka soo baxay marka meesha waxaan u baahanahay dad yani tacliin leh oo horumarna gaarsiyo maxaa dadkayna badi waxay u badan yihiin dad aan markay iskuul ka soo baxaan Nairobi iyo meelo kale oo sharciyad inta la gashto meelaha la wareegay ay u badan yihiin marka waxaan doonaynaa dad tacliin leh oo karti leh inay soo baxaan oo wadanka horumar gaarsiiyaan aad ma santa baba barasho wanaagsan oo faraxsanahay shukran dhamantiin